السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليك شرفت له إن waxaan idila qaybsanayaa caawa video clip yar aan ka seexan waayay walaahi habeenay ii tahay videogan hadduu isoo gaaray aad iyo aad uga murugooday videogana marka raba caawa mataqaanaa inaa idinkana aa ila darantiin asooy ahaan una duceysiin wiilkan yarka ee hawrtaan u nahay walaasheen dhashay. Assalaamu calaykum. Magacayga waa Salmaan Maxamuud. Ani maxay ahayd maanta waxaa ka hadlayaa dhibaatooyin iyo insha Allah maxay ahayd waxaa ka hadlayaa waxay ku soo dhacay maalintii oo hooyaday aabay ka soo tagay ilaa hadda. Ani dhibaatayaal haystay sabab ani laba cida hadda la degnaay. Cida koowaad maxay dhiba ku haystay sabab duqa iyo duqta xasidiin ay ku hayeen cidaan bawaay laakiin xagga ka bilaawa. Cidaas maxay maalin wiilka oo xagga degan 20 sano jiraa yani as dagaalne moos wiji ka tuure kadib markuu wiji moos ka tuure ani moos ka tuurasi kadib mooskani dhulka ma ka qaadin duqiya imaado wuxuu dhahay xawaxan ani mooska oo xagga yaal xaway dhahay Soomaaliya hadda wax yar dhibaaya marka saas waay ani Soomaali waqti badan ma ku hadleen Swedish la ku hadlanayo inta hadii Hamsbrook waxaas ma dhigtay marka dib waay hadda Soomaali wax yar laakiin insha Allah waa ku hadli karaa hadda wax inta u baahanay kadib marka duqa way ku xanaaqay ani waa ku xanaaq sabab duqa wuxuu ii sameeyay male kadib gacantu ka qabtay uu dhahay xawa mooskiyaal ma fiirinin cantuufa ka deys markuu saasa u ka jeestay kadib markaa ka jeestay gacantu ka marujay xasaasi ku sameynaa dhahay socialka u sheegay marka u sheegay way ii imaadeen markay ii imaadeen wax ay ii sameeyeen male ani waxaas dad way caawinayaan isdooya laakiin mi caawinayaan sabab wax ay sameeyeen male duq marka uu sheegay wuxuu ku sameeyay wax ay ii sameeyeen marka ani saasayid maalintii hooyaday aabay ila ka soo qaaday iskoolkay ku imaadeen baaskiil haystay waa ka xaday markaas war ay ka wax ay caawiyeen male waxay dhaheen hooyaday aabay meel kale ay aadeen beenay ii sheegeen marka maxaa beentaas ku sheegeen waxay dhaheen raalahow wax ma ka wadin intaas la inay ka qaadaan ani hadii hooyaday aabay ii jeen lahay oo dhiilaan waa maxay ina wax fiirino way misaas ma idin iskoolkay ku imaadeen waxay dhaheen hooyaday aabay way baxeen ani waxa dhahay hooyaday aabay hadda meel tagayaan way maxay ku sheegi waayeen miska tagayaan leh kadib meel hadda aadeen nasoo raacay dhaheen laba maalin la meesha duqaas la joogay siinay dhahan duqa ka hadlay kadib hayaa dhahay markaas laba maalin waxa uu sii noqotay hal isbuuc kadib hal isbuuc way sii badnaatay haddana iskoolkii waxay gambisiyeen 3 munader amal oo iskool ay gambisiyeen ani waxana sabab wax badan iskoolka ka misay haddana marka oo ay ka oo wacay waxa dhahay duqan xasid waa dhar meekada ani lacagtiina gacantayda ka saararba dharka ana gadan karo laakiin maya cunug yar tahay laakiin asi wax miigadu dhahay hadda wax ii gaday wax oo ebro ii gadaa dhahay kadib hadda fanaanadan oo hadda qabo hooyaday aabay ii soo gadeen sabab ani xadiimo weydiin hadiyaday ku soo gadeen alxamdulillah kuwa kale ay la gadeen si fiican mu shaqeynayaan kuwa way ka yar yihiin haddana xaway ani dhar oo dad isticmaaleen kaleeto meelahaas camal ay marko ay geeyaan ani maribiya sabab dharkan dadka oo isticmaalay haday jiran yihiin arin ma dhaqtar geenaysin ma ogyani maribiya dhahay ibaxas hay kadib ka sii wad waxay la gaday kabo waxa rabo oo maxay lacag ka sii badan kuwa ay gadeen kuwa waxay gadeen oo lacag tasbuucaha ciyaalka camal la siiyay gadeen kaba noocaas kadib way duleeleen maxay wax yara la socay leh marka la taadeena saasay tahay haye haddana
inay ku shaqaystaanay rabaan. Waxay dhaheen hal mar caawis aan weydiina maxayd may caawisiin. Ani maxaa dhahe lacag ma dhihin saas, waa ku fikira leh. Lacag ay kamid ku helaan waxaa dheh ani waxaa dheh marka waxaas dhahay maxaa u caawina lacagay ku helaan. Hooyaday ka qaadeen, aabbahay ka qaadeen, beenay ii sheegeen, gacantay ay ka qabteen, ay ka maroojiyeen. Hadda maanta subaxdii markaa soo kacay cashir sameeye kadibna duqa oo xagga wuxuu dhahay duqta cashiree ku heesaane cashirahaas xaway cashiraday maahana dhahay. Marka duqa wuxuu dhahay waxaa u qayqaynaya markaa soo degtid calooshu mobilkii ka dhufta. Taas marka maanta inaan shooshaalka la hadlaa rabe laakiin mobilka mii ka qabtin. Marka dhibay ku weedaani sabab mobil oo calooshii ku dhufta. Kadib waxaa dhahay xasaasi ku sameynay mii ku samayn kartaa dhahay. Markaas wuxuu dhahay haddii respecti waxaas malihidu iila soo galay calooshu mobil ay ku dhufta xatii. Marka saas ani waxaas caawis maahan, ani caawis oo baahanay noocan wax mii tareys cunto xatii cunto cuni. Gabadhana oo la degan hadda maalin maxay qaando oo doofaarka ku qaaratay cuntada oo ani cuno ee ku qaatay. Duqa wuxuu dhahay dhib ma leh laakiin ani waxaa dhahay doofaar ma cun diintay respect muu lehdin miya. Markaas shiberia ayadu waxay dhahdaa ani ma taabtin hay ani cunto ma cun waa kasoo tagay meesha. Haddana shalay cunto duqta ma karinin wax miila sheegin 10 haweenkee tahay. Hay marka waa degay anaa cuntiis ka samaystay sabab wax ii sheegaa ma leh. Film cunto ma samayn kariya dhahday laakiin waqti waxay wadataa oo fadhiisato oo film fiirsato saas miya.